هاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحويا قيبتي لبعض برنامجكي inoo socday aan u bixinay qorista habboon ee af Soomaaliga. qaybtiisii labaad saad arkaysiin ama shaashada ka arkaysiin hordhac haddaan is xasuusino qaybahan ka soo hadalnay. qaybta koowaad waxaan ka soo hadalnayd ereyga amba word amba mo afka qalaad lagu yiraahdo khaladada laga galo amba lagu sameeyo marka la qorayo, sida shaqalka dheer oo la gaabiyo amba shaqalkii dheeraayo la dheereeyo, sida labada xaraf ee laalaama xarfaha laalaama af Soomaaliga shibanayaasha waliba shibanaha oo consonantska anagii soo sheegnay, iyo khalad kale oo soo sheegnay oo soo cadeynay isagana wuxuu ahaa hamzaha wixii loo oran jiray hamze oo isaguna cod gooniya oo shibana ah oo badanka marka la qorayo la iloobo. khaladadaas ayaan soo sheegnay. marka ereyada Soomaaliga marka la qorayo khaladada dadka soo noqnoqda ay dadku badanka ay sameeyaan amba khalad waa la gali karaa oo qofku maxay ahayd mistake oo kale uu iloobi karaayo soo qoraya, base waxay u badan tahay inay khaladadaasi soo noqnoqdaan. taasi waxay markhaati ka tahay in ay dadku malaha ay iloobeen ama aanay garanayn qoraalka habboon ee af Soomaaliga, weliba naxwaha ahaan amba waxa orthography la yiraahdo, sida habboonee loo qoro ereyga inay dadku ay aqoontu maxay ahayd aqoonteeda aynay lahayn. marka sidaaba daraaddeed baa nagu kaliftay inaan barnaamijyadan oo kale aan soo bandhigno annagoo kulley saxayna isku dayana inaan saxno wixii aan ka naqaanadii af Soomaaliga, annagoo doonayna inaan saxno dadka doonaya inay af Soomaaliga bartaan u saxno. barnaamijkana ayaantii hore waan soo cadaynay ahaydoo barnaamijku waxa weeyaan ku dhaada afkaaga u dhiibo dhashaada. marka maanta haddaan halkii ka sii wadno oon qaybihii kale anagu saxitaankii sii wadayna, wuxuu ka koobnaan doonaa casharkeennu saad shaashasha ku arkaysiin ereyga ayaan weli ku jirnaa iyo saxitaankiisii, khaladada ereyga iyo saxitaankoogii. marka khaladka ugu horeeya waxa weeyaan waxaan eegi doonaa magac iyo lifaaq. dadku waxay khaldaan magaca Soomaaliga iyo waxa ku lifaaqma amba waxa ku darsama. afafkan waxa lagu yiraahdaa affix. waxaan naqaanay markaan iskuulada dhiganayna waxa la yiraahdo suffix iyo prefix. marka labada marka la isku geeyo waxay naxwuhu u yaqaanaan affix, wixii halka hore iyo xagga dambe ereyga kaga beera ee lagu lifaaqo ama lagu dajiyo. marka khalad baa laga galaa inaan iyadana cadayno Soomaaligu muxuu lifaaqaa ereyga magaca Soomaaligu. ereyga magac markuu isku bedelo magac buu noqonayaa ereygu, waliba anagu noun baan soo qaadanaynaa amba leno. maxaa halka hore kaga beeri kara, maxaa xagga dambena kaga beeri kara. inkastuu Soomaaligu iminka baan nii sheegay una lahayn halka hore wax kaga beera uu halka dambe un ka qaato magaca Soomaaligu nounkan u jeeda. qaybta labaad waxaan ku arki doonaa sadarkiisiin qorista habboon ee falka marka la qorayo khalado badan mid dadku sameeyaan oo falkii iyo isrogrogiisii ayaa lagu xadgudbaa. mar waxa lagu xadgudbaa waa la kala qoraa amba waa la isku qoraa amba la isku dejiyaa. marka isagana waan iftiimin doonaa. qaybta saddexaad waxaan ku arki doonaa falkaabka oo isaguna arkaysiin ereyadan malaa inaan xasuusinba iyaga ugu baahan yahay. falkaab waxaan ayaantii nidhaahdo aniga ku garab qoray waxa weeyaan waa adverb amba adverb Faransiiska iyo Ingiriiska bal lagu yiraahdo. qorista habboon iyadan khalad iyo halka in badan ka yimaada. waxaa kaloo jira xeerarka afraad horyaale anaga niri waxa weeyaan waa preposition iyo magacuyaalkana waa niga arkaya waxa weeyaan waa anaga nidhaahdo waa pronom personnel aba prono magac buu u yaalaa. horyaalana saad arkaysiin waa hor yaalaa magac kale amba waxay ahayd erey buu hor yaalaa. ereyga hor yaalla wuxuu noqon karaa inta badan fal. marka waa isku dhafayn. isku dhafniduna waxa weeyaan waa la isku dajiyey amba waa la isku lifaaqay, waa la isku xiray, waa la isku daray waan oran karaa.
markaas waxaad arkaysid shanaadna iyadana xeerarkeygaan iftiimin doonaa see baa la isugu daraa horyaalle iyo magacuyaal markay isgalaan markayna isgalayn markay isku darmayaan markay isku darmayn shan waxaan arki doonaa qurub diiradeed wixii la odhanayay qurub diiradeed iyo magacuyaal isku dhafan qurub diiradeedkuna Soomaaliga unbaa u gaar ah anagana waxay ahayd waa fox maker waa ereytoosiye sida naxwaha maxay ahayd buugaag kale oo naxwo ay sheegaan qurub diiradeed amba diiradeeye yaa la yidhahdaa markaa waa dhowr erey oo iyagana waan iftiimin doonaa magacuyaalkana mar way raacaan marna ma raacaan markaa wixii xeera naxwuhu noo saamaxayo ayaan isagana isla arki doonaa waxaa kale oo iyaduna aan marka dambe u dhaafi doonaa oon bilaabi doonaa maanta inkastoon dhammayn doonintaana hadduu waqtigu naga gaadhsiiyo waxa weeyaan hadal iyo qoraal oo markaa haddeeto la weerdhay baan garaynaa weer iyo weer labadaaba Soomaaliga waa la qoraa weer koonfur baa kolley dhacda waad aragteenoo xarafka dhac la yiraahdo raac bay badanka u bedilaan reer koonfureedku weer labadaaba maxay ahayd qaamuusyadu way sugaan markaa weer amba word oo la dhigan sentence amba phrase taabaan gali doonaa hadal iyo qoraal wixii written-ka ahaa ee ikriga ahaa iyo oraalkii yaan isbarbar dhigi doonaa maxaa la qoraa maxaana marka la hadlayo la sheegaa waa bilow maanta casharka uma malayn doono inaan dhammayn doono si bilow bay noqon doontaa marka khaladaadka badanka iyaduna wax badan bay naga sixi doontaa marka wax qorayno marka barnaamijkeenii qorista habboon insha allah maanta inuu sidaa koomo ayaan rajaynayaa haddaan xasuusin ka bilaabo marka ugu horeysa muftaax aynoo noqotee abla ableynta dir naxweedka anaga kasoo hadalnay waxa weeyaan abla ableyn waa classification waxa la yiraahdaa amba classification dir waa koox amba class naxweedna waa naxwihii waa grammarkii title ku saabu ku macnaynaa abla ableynta inagoo classification ama kala saarsaareen oo abtirinayna dir waa koox naxweed amba qaybaha hadalka yaan u oran karnaa ingiriisna waxa weeye parts of speech faransiiskana waxa lagu yiraahdaa class grammatical amba category grammatical wixii loo oran jiray weeyaan marka haddii aan halkan isla aragno waan xasuusinayaayo waxa weeyaan kow magac waa noun amba no fal waxaan idhaahdaa waa verbi tilmaame amba sifo waa adjective magacuyaal waa pronom amba pronom personnel falkaabe waa adverbi waa naga nidhi labada luqadood basaab ku yahay horyaale waa preposition amba proposition preposition waan ujeedaa xiriiriye waa conjunction isku xidhe waxbu isku xidhaa xiriiriye amba isku xidhe diiradeeye waa naga soo sheegno waa fox maker waa ereytoosiye word toosiye oo kale waa ereyo aan isla arki doono marka waxa weeyaan waa saan loo naqaa waxaan ka tegaynaa dadku waxay badanka isku khaldaan waxaan marka naxwo laga hadlayo waa qaybihii hadalka qaybo kaloo sifooyin ama fonction wixii la odhan jiray luqadda faransiiska fonction waxa weeyaan sujet iyo complement iyo maxay ahayd waxyaaladaas epithet iyo attribut iyo waxyaaladii complement du nom iyo waxyaaladaasi waxay noqon doonaan fonction wixii weedha dhexdeeda inagu waxaan ka hadlaynaa waa class waxa weeyaan waa dir waa category iyo ugu waaweyn ee naxwaha complement du nom baa la isweydiin karaa dad yidhahdeen maxaad uga reebto complement du nom kolley waxaa la yidhahdaa waa magac kaabe magac kaabuhu markaa wuxuu noqon doonaa un magaca oo isrogrogay oo markaa fonction uu noqonaya sida sujet kuma soo diri meeshan complementna kuma soo diri gelin oo la yidhaahdo naxwaha yeele halka hoosa ka arkaysiina yeele iyo la yeele kuma soo dirin marka waxaan xasuusinaynaa horta mafaatiixda inoo furfuri doona casharka waa inaan xasuusiyo dir naxweedka aan isticmaali doono magac fal iyo falkaabe iyo banaan doona maanta horyaale iyo maxay ahayd markaan ka hadli doono magacuyaal iyo diiraday markaan ka hadli doono waxa weeyaan waa qaybihii class grammaticalka ama category grammatical ama grammatical category wixii loo oran jiray amba part of speech wixii loo oran jiray taasi xasuusin bay tahay saxitaankana waa nagii soo aragno ayaantii horaan pagekan isla aragno waxa weeyaan textka markaan qorayno isku darayno khaladaadka dhacaya noocyadii kala haayeen oo anagii halkan ku tilmaamnay waxaa ka mid ah xarafkii
shaqalkii iyo shibanayaashii oo la isku khaldayay oo kii dheeraana la gaabinayay kii gaabna la dheerinayay xarafka laba laama oo iyadana la labalaabayn oo anagii soo aragnay halkan waxaan anagii soo aragnay saddexaadna aragno xageebaad u socotaa hadda isii buugaanta oo anagii nidhi xagee baa aad u socotaa bay ku fiican tahay marka la qorayo hadalka oo oran karnaa xageebaa bas markaan wax qorayno waa inaan nidhaahno xageebaad u socotaa hadda isiidaasi oo darkiisiin halkaa iminka arrowgan hoos dhigay ama flashka isii waxa weeyaan waa waxa la isku khalday maxay ahayd oo magacuyaala oo erey gooni u baxaa oo pronom personnela iyo verbigii marka wanaga halkan ku saxanay kala saarnay khaladada ayoo kale ayaa kulli dhici doona oon sii iftiimin doonaa caawa halkan waxaad arki doontiin halkan kale haddaan ku noqono saddexdii uun xageebaa waxaa la isku daray maxay ahayd adverb wixii la odhanayaa ama falkaabkii oo iyo qurubdiiradeedkii oo baa oo iyadana iftiimin doono in la kala saaray ahayd halkan waa la isku daray halkana markaan saxaynay waa nagii kala saarnay u odaasinay u socotaadaas waxa weeyaan waa isaguna waa erey inuu sidaa maxay ahayd horyaalihii weeyaan oo inuu horyaallo meesha jihadii buu sheegayaa waa wuxuu horyaallaa socotaayo fal ah ayuu horyaallaa fal waxa weeyaan waa verb wixii la falayay wixii la samaynayey waxay ahayd actionkii la samaynayey u socotaana waa horyaallay marka waxaan u kala saarnay xageebaa aad u socotaa khaladkan u socotaadii la isku dadejiyey xageebaa sida marka loo qorayo ee saxdaa sidaa way inay noqoto marka arrimahaas ayaan kulley xal u doondooni doonaa inaan iftiimino oo maxay halkan qoraalkan iminka halka ugu horeysa titleka wadiga arkaya waxa weeyaan this is the reason for why we should learn Somali grammar in order to write an correct sentence marka waa la iska wada fahmayaa waxa weeyaan tusaale ama markhaati in ay qasab inagu noqon doonto aan u baahan doono inaan baranno naxwaha ama grammar wax la yiraahdo inkastoo lagu talax tagayno hoos loo daadegayn si loo soxo khaladaadka badanka aan samayno inagu khaladaadka badanka aan samayno waxa weeyaan waa khaladaad naxwaha haddaan in yar ka garanayno naxwuhu naga qaban lahaa khaladaadka aan samaynayno tusaale ahaan read on a friend page wiil saaxiibkay ayaa mar Facebook aan arkay isagoo maxay ahayd wax soo qoray wuxuu soo qoray weedhan baan ka soo qaaday weedhan baan ka dhaqaaqi doonaa inaan kulley balsaxno oon aragno noocyada khaladada dadka bini'aadanku asxaabtiin ay samayn karaan wuxuu yidhi ninkaa saaxiibkay allahayow maalinta dhalatay khayrkeyga nasii sharkeygana naga hay aamiin waa weedhuu soo qoray marka weedhaas haddaan akhrino allahayow maalinta dhalatay khayrkeyga nasii sharkeygana naga hay aamiin qoraal ahaan waxaan u jeedaa maxay ahayd oraal ahaan amba hadal ahaan waan fahmaynaayo waa weer fiican balse markii la qoray haddii sidii Soomaaligu wax u qoray uu yiri hadii tulaan anagu adeegsanayna de rules ba hadii galayna waa qoraal hadal baan ka gudbaynaa qoraal baan qoraynaa xeerar baa imanay marka xeerarkeygii waa inaan eegno xeerarkii markaan eegnay saddex khalad baan halka ka aragnay anigii 3 mistake baa ka soo baxay oo niga arkay 3 mistake aniga casaama ku qoray allahayow khalad male maalinta khalad male dhalatay khalad male base khayrkeyga waa khalad baa halka yimdo khayrkeyga khalad baa halka ku dhacay khaladkiina aniga halkan hoos nagu sheegay arowga raaca hoosta taga waxa weeyaan khayrkeyga no bad raayada waxa la qori lahaa khayrkeeda waayo iminka laba laga dhigay khayrka waa magac wanaw keeda marka qodobku kama go'ee wuu ku beeraa oo waa lagu lifaaqa khaladadaas oo kale waa niga arkay waxa weeyaan waa no iyo wixii ku lifaaqmi lahaa oo maxay ahayd qodoba yaa la kala saarayaa khalad kala galo joorkii ama cayntii ma laba mise waa didig isagana lama eegi marka inantu maalintu waa didig waa weyn maalintu lab maaha luqada waa waxa la oran jiray femina masculine maaha
waxayna leedahay khayrkeeda maaha ina khayrkeyga leedahay ga'da labkaa qaata masculinka qaata khayrkeyga marka in la isku dhajiyo in keedan laga dhigayahay halkana nasiina khalad baa dhacay waxa weeyaan anaga nidhi halkaa waa verb nasi marka waxaa laga dhigay nasi inaan laba laga kala dhigo na waxa weeyaan waa pronoun personnel annaga oo kale sina waa verbiga pronoun personnelka waa in la kala saaro verbi luqad verbigii iyo pronoun personnelkii ay isku dhajisan yihiin adduunka laguma hayo naxwo ahaan marka in la kala saaro soomaaliguna saabu qaba sharkeygana halkan waa okay waa in la qoro weyn sharkeygana in la isku dhajiyo waa la isku dhajiyay mise weli sharkeeda ayaa la qori lahaa na'daasina inay ku dhigto maaha inkastay dood dhinaca naxwaha soomaaliga dad badan oo naxwaha qoraay ka doodaan haddana inay anigu waxaan qabaa inay na'du maadaama ay tahay xidhiidhiyana waxaa la yidhahdaa waa conjunction de coordination amba conjunction coordination isku xidhiidhiya waxa weeyaan in uu magaca anugu gooni ka ahaado yaan xoojinaya anugu inkastay dad badani diidayaan dad badan oo aan arkay oo af soomaaliga aad ugu talax talagay iyagu waa la kala saaraa meel qaarkood yaa la isku dhejin karaa hadhowna waan yar macnayn doonaa insha allah markaas wadniga arkaya khaladadii halkaaba ku saxnay nasii khaladka laga galay sheerkeyga khayrkeyga halkan waxaan ku qoray weedhiyo saxa halkan waxaan iigu soo qoray allahayow maalinta dhalatay khayrkeeda nasii la kala saaraya sharkeedana naga hay inkastoo iminka aanu isku daray waxay ku habboon tahay in sharkeedana la kala saaro waana la isku dari karaa waana la kala saari karaa amase waxaa la xoojinayaa kala saarkaa la xoojinaya markay magac tahay okay khayrkeyga sharkeeda waayo deedan maan macnaynayo inanta aqalkeeda lama yidhahdo inanta aqalkeyga lama yidhahdo marka qodobkaasi waa qodob lahaansho dhidiga qodob lahaansho dhidig qodob lahaansho lab hadduu ahaan lahaa yaa la odhan lahaa da baa imika beeraysa da'daasi waxa weeyaan waa qodob lahaansho dhidig siaad u arkaysiin waa tiyo faransiisa un marka inaguna iska eegta dadka faransiiska fahma waa beijkion maadaama dadka ugu badan ay dhegeysta ay yihiin dad faransiis ku hadla amba english dhalinyaraduna iskuullada ay kolley ay ka dhiganayaan marka waxaan ereyga soomaaliga ah badanka aan ingiriis iyo faransiis ula doonanayo maaha inaan sii jahwareeriyo mise waa inaan u fudaydiyo dadka naxwayaasha kala garanaya faransiiska amba ingiriiska si ay soomaaligana ay muftax ugu noqoto ama meel ay usoo maraan isbarbardhigu markaa tusaale uu noqonaya uu soo dhaweynaya fahanka maaha un inaan wax kale uga jeedno marka wada aragtiin waa tii un oo iminka faransiis ka dhigay marka magaca ayaan iminka u imanaynaa magaca waxaa la yidhahdaa khaladada laga galo ayaan maanta ayaan ku sii yardaadigaynaa magac af soomaali waa noun amba no affix maxaa ku lifaaqma maxaa lagu daraa karaa ayaan eegaynaa iminka markaan qorayo tusaale ahaan waa halka waxaan kugu qorayo stop waa wixii khalada halkan waad arkaysiina waa yes amba waa we waa okay waa meeshii wixii in habboonaa inaan qorno ee sax ahaa iminka wiil waa magac saan wada naqano waa garçon amba waa boy marka wiil haddaan doonaya inaan qodob ku daro waxyaalada ku biiri kara waxa weeyaan waxaa dhici karta kacdaas waxaa la yidhahdaa waa determino amba determiner waa pronoun waxaa uga jeedaa waa article determino sida the boy buu noqonaya boy the boy amba garçon le garçon marka af soomaaligu wiil ka buu ka dhigaa ka'daasi waa inay ku beerto ay ku dhegtahay maaha in saa loo kala saaro marka wiilka dad badan baa qora wiilka way kala saaraan khalad weeyaan aniga stop yiri halkan kale wiilkee haddaad su-aal waa qodob kale waa article interrogative amba su-aal buu weydiinaya wiilkee in la kala saaro maaha wiilkaa haddaan tilmaamayo demonstrative wiilkaa haddaan tilmaamayo inaan kala waxaayoo dhan waxa weeyaan waa ereyga maxaa ku beera way dadku qoraan wiilkiisa tana waa lahaanshihii qof baan ka sheekeynaya waa wiilkiisa amba waa inankiisa
kiisadan inaan ka saara maaha intaayo dhanba waa khalado dhici kara in magaca maxaa ku dhegi kara wixii ku dhegayo laga saaray iminka wiilkase wiilkana waa waxii qodobadii magaca ku dhegi lahaa oo laga saaray dhibta ayaan iminka eegaynaa maxaa saxa waxa weeyaan markaan qorayo wiil marka halkan baan iigu soo dhigay wiil markaan qorayo Soomaaliga waa magac waa noo ama waa noun haddaan doonayaan qodob ku daro wiilka uu noqonayaa the boy amba le garçon waa ku dhejinayaa qodobkii ku dhagayaa waa lagu lifaaqayaa waxa kaloo lagu lifaaqi karaa wiil noogii markaan soo sheegaynay nounkii wiil ku qodob ku la yiraahdo iyo ka la yiraahdo iyo ku-duna waxa weeyaan badanka marka laga hadlayo ku waxa weeyaan af Soomaaligu wuxuu leeyahay marka fonction way noqonaysaa imika wiilku wuu ordayaa ayaan oranayaa wiilku tufaax ayuu cunayaa wiilku marka yiraahdo waxa la garanayaa waa udaasay waxay sheegaysaa inuu sujet yahay ama subject yahay faacil si carabiga lagu dhaneeyay faacil waxa la yiraahdaa marfuuc bid waa damadii oo kale lagu garanayay marka udaasay waxay sheegaysaa inuu waxan yahay maxay ahayd isagu wuxuu samaynayo af Soomaaliyeed waxa lagu yiraahdaa sujet inuu yeelo yahay yeele hata ma si daadigi karno oo waa imika tusaale oo nadaan ayaan waqti kala ka sheekeyn doonaa imika han wiilku sheegaysaa inuu yeelo yahay inuu sujet yahay iyo inuu muxuu ahaa wixii uu falay haddana yara wiilka imika libaax ayaa wiilka cunay imika wiilku cunay ma odhanay wiilka cunay waxa weeyaan waa object waxa weeyaan waa la yeelay wiilku markuu wax samaynayo wiilku odhanaysaa marka isaga wax lagu samaynayo wiilka abadanaysa marka waa qodobkii lagu garanayo qodobkaasi hadduu ka iyo ku yahay ku dhagaya wiilkii la isla garanayay Soomaaligu luqadaha kale mara kaana wiilkii la isla garanayay Soomaaligu isaguna wiilkii aan isla garanaynin muxuu yiri waa male imika haddaan doonayna Faransiisku le garçon jaune dont je t'ai parlé wiilkan kaaga hadlay amba Ingiriiskuna wax sidaas leeg the boy we talking about waa ka hadlaynay goordhawey erayada sidaa ee badanka la isticmaali oo dheer Soomaalidu wuxuu qoranayaa war wiilkii saacadii gurigii iminkaan ka hadlaynay qalinkii iminkaan ku dhiibo kale wax la isla garanayo kolley maxay waqti tagaya la isla garanayo amba laga soo sheekeeyey marka kaana waa lagu dhejinayaa wiilkee markuu su-aasha yahayna qodob su-aaleedkuna wiilkee waa lagu dhejinayaa wiilkan marka tilmaam uu yahay wiilkan dhow wiilka yar fog wiilkoo ka sii fog wiilkeer baaleeya Soomaaligu saabu ku tilmaamaya kan koor keer isgarab dhigdhigayaan ereygii wiilkan wiilkoor wiilkeer keertaas waxay sheegtaa bay yiraahdaan macallimiinta naxwu wixii garab yaalay beside amba waxay akootay ahaa iyo sheegaysaa ra'ada imikaan gooniga uga saarayna mar waa lagu daraa waxtaan waxay ku gobolada ku xidhan tahay wiilkoor labadaba waa la odhan karaa wiilka iyo wiilkaas labadaba waa la odhan karaa maadaama gobolada ay ku kala badan yihiin labadaba naxw ahaana waa la qori karaa wiilkaas iyo wiilkaa isku macne wiilkoor iyo wiilko waa isku macne wiilkeer iyada ra'da lagama reebo taas waxa weeyaan u garab yaallaba waxa garab yaallay kale lahaanshihi isaguna muxuu noqonayaa wiilkayga wiilkaaga wiilkiisa wiilkeenna wiilkooda saaba loo wadi doonaa waxa qodobo ee soo sheegay magaca waa lagu dhejinayaa markaad qorayo waa lagu dhejinayaa waxaan uga hadlayaa waxaan waa lagu dhejin wiilkanaga wiilkana wiilka se labadaasina waa laga saarayaa siday ku habboon tahay haddii lagu dhejinayo anigii soo sheego wax dhib male meese waxay ku fiican tahay wiilkana inaan laga saaro wiilka se meese halkan nota bene aniga qoray markaan leeyahay anigana nacdaas waxay ahayd erey ku beera maxay ahayd marka anigu waxay ka dhigan tahay waa magacuyaal qofeed aniga adiga isaga magacuyaalada nacdu waa qasab inay ku dhigto marka laga leeyahay waxaan fal ninka ahna marka leedahay waad ku dhejinaysaa iyada imika waxaan waa ra'iisul wasaare ahna gudoomiyaha baarlamaanka hadda tirada ahna nacdaasi waxaan waa wixii ka shaqadii kale isku xidhanaysa labadii shaqo waa ra'iisul wasaare
ahna amba waa macallin ahna gudoomiye amba maxay ahayd director ahnadaasi ahna baa la yidhahdaa marka dhowr shaqo qofku accumulation waxa la yidhahdaa accumulation samaynayo nacdaaba la isticmaalaa ahna marka nacdaasi maadaama ahaashii fal ay tahay way ku dhegaysaa gooni ma baxayso mise markay magac la garab dhigayo waxay habboon tahay inkastoo laisku raacsanayn waxaweyaan in lagu dejiyo wiilka in lagu dejino la kala fogeeyo saankan u kala fogeeyey wiilka se isaguna waa sidaa mise markay pronoun iyo fal sidaayoo kale meelaha waa lagu dejinayaa marka halkaas waxaad ka arkaysiin magaca anagii dusha kusoo sheegnay magaca soomaaliga markaan qorayo magac kasta markaan qorayo imka tusaale wiilkii magac markaan qorayo noun markaan qorayo maxaa ku dhagaa oo ku lifaaqma iyo maxaa aan ku lifaaqmin waxaa ku lifaaqma qodobada oo halkan aan sheegi doono oo tusaale kale aan igu sheegi doono iyadoo tafatiran iyo waxaana ku dhegi karin nacda iyo sacda baan ku dhegi karin haddaan u dhaafno